assalaamu calaykum kusoo dhowaada 7 waxyaabood ama 7 faa'iidood oo ay leeyihiin cabista biyaha. maxaa jirkaada ku dhacaya haddii aad iska beddesho dhammaan cabitaanada aad cabto aadna ku beddesho biyo kaliya? haddaba muuqaalkan waxaan ku qeexi doonaa 7 faa'iido oo ay leeyihiin cabista biyaha. biyaha waa xalka guud ee nolosha. cuntooyinka badani waxay ka kooban yihiin biyo. dabcan maadan samaysan baasto, baradho iyo ukunta la kariyo iyadoo aan jirin biyo. dhammaan dadku waxay og yihiin muhiimadda ay leeyihiin biyaha, bal ka fikir haddii qofka weyne qiyaastii boqolkiiba 60 jirkiisu uu yahay biyo. laakiin maanta waa adag tahay in qof waliba uu ku qanco kaliya inuu cabo biyaha. dad badani ayaa caba cabitaanada sida soodada, cabitaanada qofka tamarta siiya, kafeyga iyo shaaha maalin waliba. nasiib darro, cabitaanadaas waxaa ku jira sokor, dhadhan badan iyo maadooyin kale. sidaa darteed maxaa dhacaya haddii aad cabtid ama aad ku beddesho cabitaanada biyo kaliya hal bil? waa hagaag. waxay u muuqataa in jirkaaga uu aad ugu fiicnaan lahayd arrinta. biyaha joogtada ah, shaaha aan sokorta lahayn iyo biyaha macdanta ayaa jirka siinaya difaaca jirdhis, kuwaas oo ka difaacaya jirka dhibaatooyinka kala duwan. haddaba faa'iidooyinka biyaha lama soo koobi karo, laakiin muuqaalkan waxaan ku soo bandhigayaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka biyaha. qodobadan waa kuwo cilmi baaris dheeraad ah kadib la soo saaray, iyadoo isla markaasna lagu sameeyay dad kala duwan oo ku nool dunida meelo kala duwan. midda koowaad, biyaha wuxuu kor u qaadaa ama caawiyaa dheefshiidka. inta lagu guda jiro hurdada, jirka waxa uu lumiyaa biyo badan. haddaba waa inaad cabtaa ama waa inaad si toos ah aad u cabtaa biyaha kadib markaad hurdada aad ka soo toosto. miyaad cabtaa hal galaas oo biyo qabow ah calooshaada oo maran? taasi waxay kordhinaysaa ama kor u qaadaysaa dheefshiidka boqolkiiba 30 hal saac kadib, taas oo u dhiganta 25 kalori, iyadoo loo eegayo daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal u dhashay dalka Jarmalka. 2, waxaa laga yaabaa ama ay ka caawin karaan biyaha inaad noolaato waqti dheer. waa hagaag. waxaa laga yaabaa dad badan oo idinkeeda ka mid ah inaad la yaabtaan oo aad istirahdaan qofka waxa uu ka dhaminayaa waqtigiisa. taasi waa sax, laakiin hal galaas oo biyo oo dheeraad ah oo aad cabto maalintii wuxuu ku horseedi karaa inaad noolaato waqti dheer, iyadoo loo eegayo daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Lundus ee dalka Sweden. taas waxaa loo tixraacayaa ama loola jeedaa in biyuhu ay yareeyaan khatarta cudurrada ku dhaca wadnaha, xididada iyo cudurka sonkorowga noociisa 2. sidoo kale cilmi baarayaashu waxay ku guuleysteen in cabida biyaha ay yareeyaan cudurka ku dhaca xididada hormoonada ka imaanaya kadib markii ay tijaabo ku sameeyeen qolo dad ah oo biyo in muddo ah biyo cabayay. cudurka hormoonka ku dhaca waa cudur khatar ah, wuxuu sidoo kale kordhiyaa halista cudurrada ku dhaca wadnaha, nooca 2 ee cudurka sonkorowga iyo cudurrada kelyaha. 3, maskaxdaada waxay u shaqaynaysaa si wanaagsan. maskaxda waa mid ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee jirka, islamarkaasna waxay ka shaqaysaa ama waxay u shaqaysaa si joogto ah. waxay ka kooban tahay boqolkiiba 85 biyo. sidaa darteed waxaa lagu talinayaa inay hesho biyo ku filan si uu jirka ugu shaqeeyo si habsami leh. 4, biyaha ayaa ka caawinaya inay calooshaada socoto ama aad saxrooto. inaad ka raagto saxrada ayaa ah dhibaato ka timaada qaleelka ku dhaca mindhicirada jirka, gaar ahaan caloosha iyo dheefshiidyada. haddaba biyaha waxa ay ka caawinayaan inaad si joogto ah aad u saxrooto. sidaa darteed saynis yahanada waxay ku talinayaan in la cabo biyo badan si qof waliba oo caafimaad qaba uu si joogto ah ugu saxroodo. 5, biyaha waxay ka caawinayaan ama waxay ka caawin karaan miisaan dhimista ama inaad miisaankaada aad yareyso. cabitaanka biyo badan ayaa ka caawinaya ama ka caawin kara inaad dhimiso miisaankaada. tani ayaa lagu sheegay in biyuhu ay kor u qaadi karaan hab cunista cuntada iyo in la dedejiyo habdheefshiidka kiimikada ee cuntada. biyaha kaliya uma cabi kartid inay miisaankaada ay dhamaan, laakiin waxay ka caawin karaan yareynta miisaankaada maadaama ay si dhaqso leh ay u caawinayaan habgubista cuntada ee dheefshiidka. 6, biyaha waxay ku siinayaan tamar badan. inaad lumiso boqolkiiba 2 ee keydka biyaha jirka waxay hoos u dhigi kartaa waxqabadka jirkaada. ogow in ciyaartoydu ay lumiyaan boqolkiiba 6 ilaa 10 in biyaha jirkooda uu ku jiro ay noqdaan
dhidid. sidaa darteed waa muhiim inaad cabto biyo badan haddii aad la tacaalayso ciyaaraha. muddo 7 waxaad keedinaysaa lacago fara badan. ugu dambeyntii waxaad keedinaysaa lacago fara badan marka aad cabayso biyaha, isla markaasna waa kuwa u wanaagsan caafimaadkaada. cabitaanada soodada iyo cabitaanada kale ee maadooyinka kala duwan laga sameeyo ayaa ah kuwo qaali ah, isla markaasna laga yaabo in waxyeelo ay ku geystaan.